maanta oo ah maalin talaado ah taariikhduna tahay 20 bisha Juun sanadka 2017 miilaadiga kuna beegan 25 bisha Ramadaan sanadka 1438 hijriyada waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha ee BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. Sacuudiga Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Cibaadi ayaa booqasho ku tagay dalka Sacuudiga waxa ayna wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga ay sheegtay in Boqor Salmaan iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq ay wada hadal ku yeesheen magaalada Makka. sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq ayaa sheegay in booqashadiisa uu ku tagay dalka Sacuudiga aysan wax lug ku lahayn arrimaha ka taagan wadamada Khaliijka iyo Qatar, asigoo sidoo kale cadeeyay in booqashadiisa ay ahayd mid lagu xoojinayo xiriirka u dhaxeeya dalalka Ciraaq iyo Sacuudiga. Iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa sheegay mar uu booqasho ku tagay dalka Tunis inuu halkaasi kula kulmay madaxweynaha dalka ee Tunis. waxa uuna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan sheegay in waxyaabaha ay ka wada hadleen uu ka mid ahaa sidii wax looga qaban lahaa khilaafaadka ka dhex taagan Khaliijka iyo Qatar. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dalka Tunis laga doonayo in qayb uu ka qaato sidii go'doonka looga qaadi lahaa dalka Qatar. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay mar uu warbaahinta dalkiisa la hadlayay in aysan wada xaajood la galaynin dowladaha xiriirka u jaray ilaa ay go'doonka uga qaadayaan dalkiisa. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa sheegay in dowladda Khaliijka ay ku degdegeen in xiriirka u jaraan Qatar aysan markii hore ka fiirsanin. Sacuudiga wasaaradda warfaafinta ee dalka Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in ay ciidanka ilaalada ee Sacuudiga ee xeebta Khaliijka ka soo qabteen 3 ruux oo ka mid ah ciidamada ilaalada Iiraan. sidoo kale dowladda Iiraan ayaa sheegtay in eedeymaha ay Sacuudiga u soo jeedisay ay yihiin mid aan waxba ka jirin, waxayna sheegtay in 3 ruux ay Sacuudiga qabteen ay yihiin 3 ruux oo kaluumaysato ah oo aan waxba xiriir la lahayn ciidamada Iiraan. daawadayaasha waxa ay aragtidooda ku aadan 3 nin ay Sacuudiga ku eedeeyeen inay ka mid yihiin ciidamada Iiraan ku soo dhiiban karaan baraha bulshada sida Facebooka, Twitterka iyo YouTube-ka. waxaa intaas inoogu eg warkii saacadlaha ahaa aad kala socoteen telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. cidii uu dhaafana waxa ay kala socon kartaa barta aan ku leenahay internetka oo ah www.bssomalia.tk.